dhageysiga dacwad loo haysto 9 ruux oo ka tirsan shaqaalaha dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka kuwa uu ku eedeysan musuq ayaa maanta waxay ka furantay dacwadaasi Maxkamada Gobolka Banaadir. Madasha dhageysiga dacwadaasi waxaa goobjoog ahaa xeerlaalinta qaranka, qareenada difaacay eedeysanayaashaas, dad kale oo goobjoog ka ahaa dacwadahaasi. Ugu horeyn waxaa madashaasi daahfuray garsooraha Maxkamada Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Siciid isagoo ka warramay waxa lagu soo eedeeyay dadkan waxa ay yihiin. waxaa si wada jira 9 qof la idinku eedeynaya qodobada kala ah 240 241 363 366 367 375 376 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaa la idinku eedeynayaa inaad samaysateen isticmaasheenna 941 buug kuwaasoo kala ah qaansheegasho invoice lacag qabasho receipt voucher iyo lacag bixin payment voucher oo been abuur ah oo ay kala lahaayeen 126 ganacsi iyo wasaaradda caafimaadka kuwaasoo isugu jira kuwa jira oo shaqeeya iyo kuwa falsa oo been abuur ah kuna kala yaala gobolada dalka iyadoo dokumentiyada shirkadahaas iyo wasaaradda aad u isticmaalin jirteen si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn sharciga. 2 inaad samaysateen una isticmaasheen si sharci darro ah tiimbarayaal amba shaambado. sidoo kale waxaa la idinku eedeynayaa inaad samayseen xatooyo xoolo dadweyne idinka oo u samaystay support documents si aad ugu nusataan hantidii ummadda aad mas'uulka uga ahaydeen. 2 sidoo kale aad ugu qaladaan hay'adaha lacag bixinta downeriska ugana dhigtaan in sidii saxda ahayd loo maamulay lacagtii la bixiyay. intaasi kadib waxaa la dhageystay qareenada difaacaya eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay in ay ku takrifaleen hantida qaranka iyo sidoo kale xeerlaalinta qaranka oo soo eedeysay shaqaalahaasi ka tirsan wasaaradda caafimaadka. intaasi kadib garsooraha Maxkamada Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Siciid ayaa sheegay in maanta ay dhageysiga dacwadaha isla markaana la iskugu soo noqon doono kulamada xiga go'aana laga soo saari doono eedeysanayaasha maanta la horkeenay Maxkamada Gobolka Banaadir. gudoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo halkaas isna warbaahinta dhankiisa kula hadlay waxa uu sheegay in sharciga la marsiin doono cid kasta oo ku takrifasha hantida shacabka. waxaan doonayaa inaan fariinteedu gaarto dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, shaqaalaha dawladda nooc walba ay leeyihiin iyo hay'ad kasta iyo ay ka shaqeeyaan. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay in ka doonayaan inaad si hufan ugu shaqeysaan oo aad u dhoobtaan hantida idinku dhiibay. waxaa nasiib darro ah oo ceeb ah in shaqaalaha qaar ka mid ah oo dawladda ka tirsan lagu tuhumo ama lagu eedeeyo wax isdabamarin iyo musuq. hal la ogaado ruuxii lagu soo eedeeyo musuq in la horkeeni doono garsoorka inuu halkaas ka helayo inuusan ka heli doonin halkaas hiilo baalmarsan sharciga uuna wajihi doono ciqaab sharcigu saarayo iyadoo aan looga naxariisan doonin. waxa aan farayaa dhammaan hay'adaha baarista oo qaabilsan sida xeerlaalinta iyo booliska inay indhahooda furaan lana socdaan xafiisyada iyo dhammaan hay'adaha dalka cadaaladana ay hor keenaan qof walba oo ku eedeysan musuq iyo wax isdabamarin. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.